haweenka jannada nabigeena ka sheekeeyay calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyay buu rasuulku yidhi mid ka mida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku gabadha muuminadda ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd ooy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligayga ka soo baxa ayaa cadceedda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xuuralcaynta ka mida faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nooloo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaya buu rasuulku marada yaree madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi mu'minku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xuuralcaynta dhuunteedu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeeguu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayey ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaa nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annaguna xaasu noqonnaa liibaane bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabbihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo waatan aayadda qur-aanka ilaahay ku sheegay wa ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysata maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato ibtilaa baa laguu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay daacaddiisa ku seejiyaan iyo inaad daacadda ilaahay aad ku fudhisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yaroo fudud la xisaabiyo markaabuu u gaddoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay albaabka jannaday joogaanay ku sugayaan albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu huwiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaama buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhayee soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkanu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiyo dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halka aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay markaa buu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xagga ayaa jannada u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas inaan dembi lahayn muu inagu jiraa macsuumiin ma nihin dembi wuu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabkan la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaa buu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi 70 sano caruuska habeenka ugu horraysay xaaskaaga lagu soo hooyo
labaatan daqiiqo saa ma u eegi kartaa war maxaad naga eegi bay ku odhan ilaahay faraa kaa geli maxaad ya yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda labaatan daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkeega ibn Abbas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo la xaarimta indhihiisa ka laabta kaasa xuur lacaynta daawashadeeda ku raaxaysan وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والدايمون ساسو والدايمون مؤمن 7 سنوات تعانقه ويعانقها وكبودي مركع يدنو يكسو بودي معانقته ورقوريت معانقته كل يبني ابن عباس هدنا 7 سنة كل هدنا هيسن صدا ولو هيسن مركو جنة أرك النعيم تيدي أفر شيء وأدوية أنت اللي جوجي قفك بني آدم كان نلصق قرارين يسي أيا أهل الجنة مسكح ذولا كسر لعدونا وأفرته وجيردي وجبوجي وباهدي وبقتانتي أفرتها مسكح ذولا كسر لعدوتا من نعيم كأنت لك أيا إلهين نسيي أرجاسي أفرتها حصوصنا يا عمال ليلي حق سرى لقد واقي الأردونا يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا يا أهل الجنة ما أنت لقى بلابا جنة واحد كل حليده نلل دائما لما شد بأرك ميسان نعمة جوكتا لو نقصان دم بأنا لهين دل يرنمو قبو دم بأنا لهين عافي ما قب حنون دم بأنا لهين الله ينسي جنة داسا إلى حي نورو باقى يا مالين والبا لقولي حي صلاة مركة تكنيسو مؤذن كلية حي على الصلاة حي على الفلاح جنة إسوركين جنة بشير رمضان بسوق شيء جنة إسوركين صدقات بابيحي لقال لي هي جنة إسوركين قرآن بالقولية قال آخري جنة إسوركين آخره وحبه بالقولية هي جنة إسوركين